السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaan waa salaamaya asxaabteyda meel walba aad joogtiin waxaan aad ugu mahad celinaynaa maanta Runsheeg Media oo nagu martaqaaday anagoo dhalinyarada sportska oo captainkii ku jiray xidiga magaalada Edmonton maxaan rabnaa maanta inaan waraysi yar la qaadano maadaama captainka magaalada Edmonton uu yahay Kamil iyo Cabdiraxmaan AB Cabdiraxmaan AB marka waxaan rabnaa su'aalo yar oo kooban inaan weydiino waxaan ku bilaabayaa Kamil oo kabtanka magaalada Edmonton Kamil maadaama lagu jiray xilli adag oo corona time oo wadankii uu ka jiray oo magaalada Edmonton gaar ahaan iyo ramadaankii oo noogu xigsaday haddana saamara lagu jiraa marka sidee u aragtaa maadaama banaanka u soo baxday maadaama muddo badan aad xaafadaha ku jirteen والله هذه في عنتهاي حد رجينا إنه جد بنصور بحان ومسكول هذا ونوعيه وبنون وجديله صح برك إن شاء الله هذا وحاول جيم ريسو هنلينا ودرس بلانسدين وعادي ما شاء الله لكن in the future راح رجينا هذا بدنا نصور بحان ليج الله يسمرك أن نسوي بسنة أن نركنا سومالي بحد أن يمكن كسوساتنا أن ديرنا ماشي نقعوين وكباشان soo marka sidee kula ahayd maadaama aan gym la aadayn sports la ciyaarayn bilii hadda la soo dhaafay maxaad tibtay oo aad maanta aad leedahay waan u sheegayaa dadka maadaama aysan wixii aad uga baratay sportskii gymkii meelihii fanka aadan helaynin laakiin hadda ay ku soo noqotay xoogaa sportskii maxaa dareentay dhowrka bilood aad soo dhaafay It was challenging because waxa keenayso guriga fadhigiisa shaqo ma lahayn oo ilaan coronavirus guriga lagu joogay oo everybody was quarantining laakiin hadda alxamdulillah samar kale soo galay waqti fiican aan u soo hagaagay inaan baronihiina dheelno oo wada baashaalno dhalinyarada Soomaaliyeed oo Edmonton jooga Alberta marka hadda aad iyo aad aan u faraxsanahay ilaahay inuu maarkino sida nagu sii wado insha Allah marka haddana waxaan su'aal weydiinayaa magaalada Edmonton Cabdiraxmaan AB Cabdiraxmaan ku soo dhawaado dadka magacaada u sheegay iyo positionka ka ciyaartaba Cabdiraxmaan Yusuf waxa ka ciyaaraa winger iyo attacker marka su'aalaha aan ku weydiinaa waxay tahay maadaama corona time lagu jiray 3 bilood ugu dambeysay والله بالله it was challenging بلاك أنا كوربنا صوب حنا أردنا أردنا وهاي سيفتي غينا مهم هذا الحمد لله وحكس وصلوا دانجري ما شاء الله marka saas waxa waaye dadka maadaama ay sports iyo waxa kamid yihiin way ku adkaanaysaa inay guryaha joogaan hadda waxay leeyihiin aad ugu mahad celinaynaa maadaama gobolka Alberta May 14keeda oo la furay meelo kamid ah magaalada marka uu kamid yihiin in dhalinyarada ay banooniga ciyaari karaan laakiin aysan challenge badan oo la sameyn karin marka haddana waxaan leenahay maadaama barnaamijka soo gabagabeynayno uu yahay kabtankii iyo xidigii magaalada ayagana aan leenahay wixii ugu dambeeyay su'aalaha ugu dambeeyay aan weydiinayno oo in meeshan عدة كسلام لهاين مرك عدنا هذا كوسو كامل يا كسلام سادمان والله ماشي كسلام يا دتكي نسكن قاني برونس كسو ديل جرني أو كومورو كينيا نيروبي مرك صاحب كدنا كسلام يا محمد قودن سلام يا والله تدور ما عاشوا الماما جرو مدام الناس بورصة هذا جوجو محل UK جا أو قاعد دي جري صاحب كيجا وسلام يا سجنا يا dhalinyarada dhan oo qaano hadda magacaashooda xasuusanin oo Ilaahay qurbaha meelkaas ka joogan aad iyo aad salaam alaykum guys marka haddana waxaan ku xijinaynaa Cabdiraxmaan maadaama fursad qaali u heshay Runsheeg Media aan tahay xidig sportska oo dhalinyarada sports kamid ah marka yaa ka xasuusta sportska dhalinyarada best friend-kaadi aad ka salaama khiyaarta oo محمد سجوجني أو هيجن أو لسوديلي dhamaan tood كل يوم marka insha Allah waxa waay waa kaasa insha Allah mar kale waa inoo mar kale